waxaan aad ugu faraxsanahay hadda inaan leenahay nidaam cusub oo lagu shaqeeyo wasiirada halkan ila socda waxyaabaha aan rabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda nala socda arrimaha gudaha oo uu dhageystay warbixintaada maadaama marka aan kulligeen hal dal wada nahay dawlad nahay Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed u adeegno horta waa inaan si waxa yaroon haysano loogu bixiyo sida ugu haboon ugu hufan dadkana loo gaarsiiyo waa inaan leenahay qorshe shaqo oo u adeegaya dadkooda marka waxaan hadii la yiraahdo ku talinayaa in horta halbeegyada dawladda sida kuwan hadda aad u soo bandhigtay qayb uga ahaato shaqada aan hayno si wasaaradda arrimaha gudaha ay arrimaha qaxootigan uga xanuunsanayso arrimaha abaarahan uga xanuunsanayso shaqooyinka wasaaradaha kale kuwa wax dhisan ee arrimaha jidadka iyo arrimaha kale ugu yihiin ahmiyad waxaan marka rabnaa hadii la yiraahdo safarkan markuu naga soo dhamaado maadaama dawladdu ay leedahay nidaam ay ku shaqeyso aan bilownay dawlad goboleedyada dhan inaan u dirno wasiiro iyo howlwadeeno in xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada ila socda iyo idinku aad isu keentaan waxaan hadii la yiraahdo si marka aan laabano aan ula laabano shaqooyin aan qaban karno aan isku ognahay idinkiya iyo anaga intaas ka soo waxaan idinkaga mahad celinayaa shaqada aad haysaan aadana halkan iyo diil uga muuqata waxaan marka insha Allah rajaynayaa in abaarta iyo qaxootigaba aan awoodi doono si aan wax uga qabano mahadsan